Somaliland iskaba daaba ugu firfircoonaan ka mid noqon lahaa wada doorashada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. nabada wadayaal meel kasta dunida daafidaad kaga sugan tihiin xilli kastoo inay tahay waqti wacan baan leeyahay soo dhawaada asxaabta qaariga waniga walaalkii Khadar Hudle barta daawarsina iloobin inay tahay barta YouTube ku leenahay Andiso official mar kale iyo muuqaal cusub mar kale iyo muuqaaladeennii hore ka xasaasi iyo ka xamaasad badan asxaabta qaariga balse tan muuqaalada aanu gudagelin wax naga cusaysin naxariista leh maanta maaha maalin like la iska baryo maanta maaha maalin lagu aan ku yiraahdo subscribe saar adigu is xukun sidoo kale maanta maaha maalin ku yiraahdo fikirkaaga barta commentiga ku cabir maaha asxaabta qaariga waa hadii ba taqaana daga kugu yaalan weeyaan soo dhawaada asxaabta qaariga waxaan istul istaagi doonaa ama ma taqaana ni qaada dhigi doonaa xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ma taqaana ceebti ka dhacday aqalka ma taqaana guurtida ee Soomaaliya sidoo kale dabaaldega iyo damaashaadka reer Somaliland oo maanta lagu soo bandhigay garoonka weyn ee Stadium Hargeysa iyo shacab weynaha reer Somaliland oo isku duuban sidii giraanta oo maanta dabaaldega asxaabta qaaliga ayaa raba muuqaalka subscribe saar channelka ma taqaana soo booqo aad u maasitahay waayahay asxaabta qaaliga waxaan rabaa inaan sir istaagno maanta sidii Hargeysa iyo sidii looga dabaaldegay bal muuqaalka waa kan la yartaa walaal أنا كيجا يقول إيه أنا كاجا سو إحنا يونا كين ورب كتاجن ريرك يسوق جودهام بموقال كان فرين تنعلص ودري حسن الشيخ يولي بدد كيسة سيدك نسحب تقاريك واحد كرتنا اللي يروه رير متقنا الصومالية أو متقنا أقونسك الصومالي لان وقد بالدقي مقالة مقدشو أو إذا كان متقنا الله حري معي تهدم السؤال شيء ستين تلي سيدك كله سحب تقاريك يدرك الإنسان ومقالة هرجيسة وما أنت متقنا لوجا صوبنا بحي يدرين كلهم موجينيو متقنا قوسيق الصومالي لان أو ماشي وسر رئيسي وهو ناكسنيد مريا أصحاب تقاريقا قف كست الرئيس الصومالي ما أنت مقال كلا يقرأ وشير قرأ بلوان يخص عنا أصحاب تقاريقا ويهي ما أنت اللبن مجالو أما اللبن عاصمة أيام ما أنت آدي أدلو قد بلدقين كو وعاصمة جمهورية الصومالي لان مقالة هرجيسة أو إن بقى سيان عادي هاي ذلك المقال كتكاركيسان looga soo mataqaanay banaan baxay garoonka stadiumka dhagax kor loo tuuraa dhulka kuma dhacayn waa bilaadan tarniis Hargeysa maanta way ismuujisay sidoo kale hadda waxa barbaraysay caasimadda labaad ee Somaliland ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer ama gobolka Ragana sida adoon u garo waayahay Burcaan waan ku soconaa sida Burco hada amsare kugu xasuunayd iyo ammaan baan madaxweyne بقام سركوا حسوني مدحوا ولا ديش قليا سيدي waxaad halka ka arkaysaan waa magaaladii Burco ee gobolkii Togdheer oo iyadana maanta aan ma taqana ismuujisay Soomaaliland waxa la yahay guul baan rajayna asxaabta qaaliga ka xunow nafta waa ka naxow nafta waa waxa reer Somaliland hambalyo manana qof kasta oo reer Somaliland maanta curatay balada waxa isleegi doonaa wararka laga sheegayo xildhibaanada iyo sidoo kale xildhibaanada reer Somaliland oo mataqaana qaarays casileen maxaa ka jira sidoo kale waxa la sheegay asxaabta qaaliga sidoo kale waxa la sheegayaa professor Usman Hurre Dubbe oo isaguna mataqaanayay mataqaana hada xasaasi la kaalay dadkiisana la dareen noqday saxaabta qaariga isagana waxa rabaa balnaan yeerida wasiyo balwa kale daawo Somaliland iskaba daaba ugu firfircoonaan ka mid noqon lahaa wada doorashada kulligood iska raagaysa haddana waxa jira waxaba ka weyn nug meesha maalintii aan Hargeysa ka imanay Cabdulqaadir guri weyn laba baabuur iyo shaqaan haystay waxaan lahaa bal dadka isla doon isu soo dhaweey Soomaali waa tan xaaladeedii kala fogaatay bal aqli kale inuu iman karo waxaan u tagay aqli aad moodo
in cadaawadda ku jirta ay ka badan tahay mas-uuliyadda ku jirta dabadeed sidoo professor Cusmaan Abubakar Dubbe macnaha sida uu hadalka ka dhawaajiyay arkaysan asxaabta qaaliga waxa uu bal maalintan Hargeysa aan ka tagay waxaan lahaa laba baabuur laba gaari iyo guri iyo shaqaan haystay balse waxaan islaabay anigu bal muqdisho sababtaan u imid bal dadkan aqliga macnaha Soomaaliya ku jira iyo aqliga Soomaaliland ku jira bal isku geeyo oo isku dhufo wax kaga soo baxa balse waxaan u tagay buu leeyahay asxaabta qaaliga aqli macnaha aqliga Soomaaliland ba kaliita macnaha waa sidoo halka isugu dhigay marka taas waxa ku cadeynaysa in mataqaanayay Abubakar Dubbe uu isagu mataqaanaa shacabkiisa deegaankiisa la dareen noqday ninna ceeb ma aha hadii uu shacabkiisa dadkiisa la dareen noqdo wax ceeb ma leh waayahay sidoo kale asxaabta qaaliga isagana bal waxaan rabaa inaan istaago waxaan sheegay isagana gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xasan Xaashi ayaa goobta aan badiiday inuu ka soo qayb galo shir gudoonka meeshii ka dhacay taas waxa ku cadeynaysaa in labadu wax ka soo kala jeedaan Somaliland ninna waa nin habar jeclana waa isaaq ninna waxa weeyaan Saad Muuse way hadaba sida ay dadku waxyaalo badan ay u qaada dhigayaan waxay leeyihiin macnaha waa hadalka saasi ma qurux badnay adiga hadaba asxaabta qaariga raggaas ma ku saxsan yihiin inay dadkooda la dareen noqdaan ka soo qayb gali waayaan ay mataqaanaa guud ahaanba meesha faarujiyaan xasan iyo dadkiisa la isku daawado sidoo kale asxaabta qaaliga waxaan arkaynaa muuqaalada maanta magaalada Hargeysa naga soo gaaraya reer Somaliland dumarka oo badnaadaan in maanta hal hayska ama mataqaanaa xasan sheekh lagu quwad jabinayay ay ahayd xasanow horrigde bal muuqaalka la yardaa meesha waxba ka dhacay asxaabta qaaliga xasanow horrigda ba ka dhacday laba tala tiiroom baad maanta inuu wada Roo Somaliland noo taala qof kasta mataqaanayay aqoonsiga waa u muhiim haday dhalinyaro tahay haday waayeel tahay haday caruur tahay ninna mataqaanaa aqoonsi kama maarmo aqoonsi waa waxyaalaha la isku dhaafay asxaabta qaaliga intaas barnaamijka ku soo gabagabeynayna ilaahay mataqaanaa tawfiiqda hayna waafajiyo inta mataqaanaa xanuunsan sila caafiinta muuqaalka ku kulmi doon waxaan iga tagayaa sida iyo amaana